kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno kulamo uu madaxweynaha maamulka Galmudug muddooyinkii u dambeeyay la qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshada Galmudug kuwaas oo looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa ammaanka deegaanada Galmudug kulamadaasi oo madaxweynuhu la qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka culimooyinka ururada haweenka dhalinyarada ayaa maanta kiisii ugu balaarnaa waxa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo waxa uu ka dhacay hotel embassy ee magaalada Gaalkacyo khudbadu madaxweynaha Galmudug Maxamed Axmed Cali halkaas ka jeediyana waxay ahayd sidaan ka bacdi waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha aqbalay wicitaankii in halkaan saakay aanu wax isku niraahno waxaan kaloo mahadcelinayaa dadkii soo qaban qaabiyey oo ilaa maalmahan ka shaqaynayay in la is arko ilaahay baa horta mahad iska leh kabacdi waxaad moodaa in maanta waa cusub noo baryayo waagaa cusub ama waxa aan nahay oo bini aadanimada ah oo islaamnimada ah oo dadnimada ah ayaanu muuji doonaa haddii kale waxay noqon doontaa in aanu niraahno dadkani waa la sheegi jiray waa tageen muddo ayaan safar ku maqnaa hawl ayaan aaday marka laga soo bilaabo shirkii Denmark dowladda Denmark oo kaas oo ka soo qayb galeen ilaa 58 dowladood iyo ururo caalami ah badan loogana wada hadlayay caalamka iyo arrimaha Soomaaliya gaar ahaan burcadbadeedda nabadgelyada maamul wanaagga waxyaabaha runtii annaga hadallo muhiim ah oo caalamka iyo dhibaatada annagana haysata iyo waxa ka jira ayagu caalam waxay nagu hayaan ayaanu ka hadlaynay oo ay ugu horeyso maraakiibta sunta daadinaysa kalluunkana guranaysa oo ka daranba burcadbadeedda kale oo la sheegayo arrimahaas waxaa ku xigay dowladda Mareykanka dowladda Ingiriiska dowladda Faransiiska dhammaantood arrimo muhiim ah oo dalka iyo dadkaba faa'iido u leh oo wax la taaban karo ay ka soo baxeen haddana dhawaan aanu sugaynay in halkaan ay yimaadaan oo wax laga qabto qadarinta iyo qiimaha iyo wanaagga naloo hayana aad ka garan kartaan shahaadooyinka halkaan ku jira ee nala siiyey waxaan waa kuwa waxaan aad u jeclaan lahay in dadka qaar idinkii aad dadkiiba xiray idin dadka qaar dadka in loo fasiraan jeclaan lahaa waxa naloo hayo qadarinta naloo qabo sidaa la yahay waxa weeye waa wax kala fog waaye iyo meesha aan joogna annaga maanta waa tahay annagoo arrimahaas ku dhex jirna ayaa warkii naxdinta lahaa ee afduubka ahaa ee halkan ka dhacay ayuuna soo gaaray waa ayaan daro sida naloo hayo naloo wado naloo qiimeynayo naloo qadarinayo iyo meesha aan joogno wax aad u kala fog way waayahay Galmudug nasiibkeed
markii dadkeeda magac iyo sharaf iyo karaamo raadinta xorriyaddii soomaaliya qayb weyn ku lahaa hormuudna ka ahaa xorriyaddaas ay halgan dheer galeen xorriyaddii markay dhaliyeen dawladihii dhashay musuq maasuq iyo dulmi fara badan kabacdi haddana mar labaad halgan kale waatay u galeen sidii dulligaa looga bixi lahaa dulligii oo ku dheeraaday qaabkii sidii u socday markay dawladdii rideen dhinaca kale loo rogay ayaa haddana burbur kale nagu dhacay dalkii iyo dadkii markii loo soo laabo waayana gudaha iyo dibadda waxaa laga abaabulay in la dhiso maamul ama dawlad goboleedka la yidhaahdo galmudug ergooyinkii dibadaha ka imaan lahaa waxay goosteen 6 bilood maamulka iyo ciidanka dhaqaalihiisa inay bixiyaan nasiib darro maxkamadii waatay halkaas soo fadhiisteen wax yimaada la waayey waxaa lagu dhisay marka waa is ognahay intayana qabsan ma waxaa wanaagsan inaan wax ku dhawaaqno masaayiroo na qabsan iyadoo wax ku dhawaaqno in la qabsado waad ogtihiin kulligiin degdega lagu dhisay orod waxba lagama fiirsanba fiican i dhaqaalaha keeni lahayna oo dibadda ka imaan lahaa kulligood waxay raaceen maxaakiimtii mana u raaceen kulligood cabiide waxay u raaceen 6 bilood dadkii xamar amni ka dhigay ee haddana geliso hormaraya dalkay wada qabsan doonaan marka maxaa wax kale uga lugo-aysaan intaasay ahayd waaya maamulkii la dhisay maxaa lagu wareejiyey marka waa ogeen magaaladu waa burbursaneed guryo kama dhisneen guryuhu waa dulduleeleen tacliintu meeshay maraysay waa ogtihiin caafimaadku meeshuu marayay waad ogtihiin ciidan iyo dhaqaale intiiba dhabarkaa la marsaday waxaa la yidhi haye hadda waxa la keeno ninka dibadda jooga iyo ninka gudaha joogaahina waa kii halkaan ka tegay oo xagga uun tegay wadaniyadii hadday jirto maamulada nala midka ah ganacsatada ayaa abuurtay in ay kacaan wax qabsadaan kamana caqli yarin kama wadaniyad yarin kamana maaragtay liidana intiiba maanta intaad dhasheen intii idinla dhalatay maamuladaa kale degan yihiin waad ogtihiin carruurtoodii ay geysteen waad ogtihiin intay halkaan camiri lahaayeen waaya inta ay huraynin waxa weeye dadkan u soo qiirooday u soo jabay ku soo lugo-ay intii aan is arki jirnay inta badan shirarka ayaa haddana fadhida haddii marnaba marka ay dhici weyday in madaxa kor loo qaado dulliga iyo dulmiga laga baxo wax kastana la yidhi waxna kuu dhiiba mayno waxna kugu darsan mayno waxna inaa qabatidaan rabnaa wax caqliga geli kara ma imisaanu ku diriraynay ama odayaal ama xildhibaano ama waxgarad kale war aanu waxa kale halkaa dhigane war in ammaankeenna aan ka shaqayno marka hore aan gacanta ku dhigno war warkaas miyaa beena imisaan ku dagaalamaynay oo lahayn in badan soo ma ahayn war ilaahay inta ka baqdaan aanu amnigeenna iyo karaamadeenna iyo sharafteenna aan ceshano qof wax ah ma jiro marba haddii guriga layskala baxaye tii bay maanta taagan tahay marka sow qof aan arkin miyaa jira gacanku dhiiglihii kii mujrimkii kii waxas duubay sow magaalada nooma dhex joogaan baabuurtii lagu dhacay sow magaalada ma joogto hadda waa yahay marka yaa lagu xumaynayaa marka cidda lagu xumaynayo bal hala sheego madaxweynea joogay 3 sano u joogay waa tegey anaa imid 3 jooga waa tegayaa mid kalaan ma saasaa weligay ku jiraysaan marka
badan oo meeshaa fadhiya oo shacabka iyo hadalka iyo khayradaba ay si ka tahay waxayba leeyihiin hadda ma adaabka kasii baxday soo maaha ya maxaad ku bedelanaysaa marka keenaysaa maxaa khayr oo haysaa oo ku bedelanaysaa waxaa loo baahan yahay wax uun wax dumin keliya yaa la aadine wax dhisid wax aadayaa loo baahan yahay haddaad wax dhisid isku daydidna wixii aad dhacab tahay oo aad diidan tahay waa tegayaan cod baa yeelanaysaa waa tegayaan casri jaahiligii miyaan u laabanaa oo ku soconnaa weli mase inaanu wax qabsanaa diyaar u tihin war ilaahay ha laga baqo war ilaahay ha laga baqo wallaahi baan caalin berri ama saa dambe inuu ilaahay gaarsii doono ma la oga galabta inaana gurigayga gaarinaa laga yaabaa laakiin haddaad un ku fikirtid shaksiyadaada maanta maxaa isoo galay ee aadan berri u fakerin kufsigii waa arkaysaa waxa ka socda magaalada wallaahi haddaad moodeen dadka nagu soo qaxay keliya in la kufsanayo ilaah baa ku dhaartay maalinta dambena gurigaagaa la soo gelaya waxaa islaamnimada ka fog oo aanu ku faani jirin oo wax walba samayn jirnay dadka nagu soo qaxay cid taaba kartaa ma jirto waa ku noolaan karaan dalka markaas ayagoo qaylinaya aad dariskii dhammaayo idinka ahaa qofki u soo baxeen oo ka tiiraanyooneen war ummad ayaa sanad walba goor walba nebi loo soo saari jiray markaasay dhagaxyo jireen oo dili jireen war ma kuwii oo kalaa naha anaga makaad doortaan inaad dishaan oo dhagaxyo saarta xagee u socotaan ma ogaan marka waxaan idin sheegayaa go-aanka berrito laydinka raba idinka waxaan horta aada iyo aada uga tacsiyeynayaa dadkii ajnabiga ahaa labadii qofood ee noo yimid ee gargaarka noogu yimid ee la afduubay aada iyo aad ayaan uga xumahay loomana qaadan karo waaba ka xumahay sababta waxaa waaye kii dhibka geystay aa agtayda marmaraya marka caalamku wuxuu ufasiraya waa raallaa ka tahay soo maha kulligeen raallaa ka nahay soo maaha haddaanan raalli ka ahayn waa ka kici lahayn waxaas waa wada qaba lahayn haddaanan raalli ka ahayn maamulaa raalli ka ah baarlamaanaa raalli ka ah culimaa raalli ka ah dhaqanaa raalli ka ah gabdhaa raalli ka ah cid aan raalli ka ahayn ma jirto hadday been tahay warkaas berre banaanbaxaan samaynaynaa sabtida banaanbaxaas waa in lagu ayidaa amniga iyo waxaa sida wax looga qabanaa waa ko qidid fog weeye dulinimo iyo gumaysi iyo xumaan baa laydinla doonayaa wallaahi bilaahi tallaahi maanta waddada iyo dekeda diyaar bay gacantiinay ku jirtaa waad ogtihiin cadowga ka soo horjeeda ee dhaqaalaha ku bixiya inaadnan maalin keliya aadnan maamul noqon ma ayagaan wada shaqaynaynaa marka afarta lacagta qaadata haddaa moodeen keliya inay u shaqeeyaan waa u wada shaqaynaa sababta oo ah qoos iyo si dadban ayaa cadowga loogu shaqeeyaa haddaad ka aamustid diiniyan xataa waxa xun ee munkarka ah haddaad ka aamustid haddaada gacan wax uga qaban haddaada ka tegin soo la mid maahid waxaan raalli ka wada nahay oo wuxuu soo qaata lala shaxaadayaa oo lala cunayaa kii dalka duminaayay war maa ilaahay ka yaabno war maan ilaahay ka yaabno qof aan
damiir lahayn oo dadnimo lahayn oo wanaag lahayn oo sharaf lahayn oo aan karaamo doonayn miyaa nagu jira? ma soconayso. dalka xukun degdeg ah ha ku soo rogi. guddi amniyaa shaqaynaya bes. qof kasta oo dhibaato ka wada magaalada ciidanka aan magacaabayno ayaa ka shaqaynaya. maamul, xildhibaan, nabadoon, waxgarad, gabar, ganacsato, ninka kaalkaaliya tuuga waa la mid, asna waa tuug kale. intaa ma isku raacsanna? waxa weeye tuuga mar dambe fasax iyo dalab laydinka weydiisanayo oo la leeyahay war reer hebelow waa laydin baryayaa yeela war midka gumaysiga raacay ee wata dabadhilifka ah war soo celiya. waa la isku daaray Soomaaliya 5 sanadood. waa la kala tashanayaa marka. waa la tashanayaa Soomaaliya. haye aan isku raacno maanta inaanu iska qabanno wax iska dhigno. aniga calooshaydu waxay buuxsamaysaa marka maamul iyo nidaam iyo mustaqbal iyo wanaag markaan helo. laakiin maanta maxaa xunaa kaliya markaan ku fakero aanan ku xisaabtamin horta xaggee laga keenay, xaggee ka imaanaysaa. weligay dhargi maayo, la iina heli maayo waxay dharjiya. xisaabtankiina ma imaan karo haddaanan amnigii gacanta ku hayn. waayo meeshii aan ku xiri lahayna waa meeshaad aragteen, lays iibsanayo. garsoorkiina waa baqay oo culimadii waa kuwan markay xukumeen intuu ku soo baxay futaxuma la yidhi qoraga inta sanka laga saaray. war haddaa maamul ayaa xukumaa marka, haddaa xildhibaan aan sharcigaan fulinahay aawi horta ya aan runta isku sheegno. maalin walba yaana iska daba wareegin. nabadoon maxaa xukuntaa ii sheeg. maamul muxuu xukumaa ii sheeg. xildhibaan muxuu yihiin. ma waxa weeye inaan maanta oo dhan midba midka kale faraqa ku dheganaado oo aanan fiirin inaan horay aadno. war waxaad rabtaan oo sharaf leh oo karaamo leh oo wax qabanaya horta bal marka ugu horraysa adiga naftaada isxisaabi intaada dadka kale xisaabin. qof raba inuu isxisaabiyana ma jiro. waxa weeye marka inaad taageertaan, u soo bannaan baxdaan, wax ka fulisaan, la shaqaytaan. laydinka doonayaa amniga shaqaynaya. amnigaa shaqaynayana canshuur qaado. guryaha, bakhaarada, dukaamada, jidadka, meel walba, shirkadaha, hay-adaha, war naga badan. 2 bilood kaliya amnigeena haddaan adkaysanana 300 ee shaqaynaysa waxaa idinka ballan qaadayaa 1500 mushaar qaadata. adduunyadu waxay nagu haysataa wax kale ma aha. maamulka wiilkaasi waa jufadiis soo maaha. inta inagii isku tagno oo ismiraano inteenaanu isku duuban oo hal meel ka soo wada jeedna bal wiilkeena aan maamulka ciidan dawladeed aan ka dhigno. waa la waaye. maanta haddii la yidhaha maamulkaa gacanta ku dhigaya 300 hadday yihiin 1500 ay tegaysaa. waa hore waa soo aragna. anaa adeer u ah, cabd ayaa adeer u ah, adeersanaada adeer u ah, shiicale adeer u ah. ma meel kale ka yimaadeen? ma qaban karnana waan leenahay soo maaha. yaa lala goynayaa marka. waayahay waayo haddaan tagaan mid kale mala keenaya. wallahi haddaa waxaad isku raacsan tihiin aad maanta isku raaca inaad nabad abuurataan. qofkaadnaan rabin wuu idinka tegayaahe.
haye waxaan leeyahay marka ilaah baa isku dhaarsheeya iska dhiga dana kale bannaanka dhiga maanta kamriga kufsiga dilka dhaca intaas midka kale ka yar miyaa jira haybad iyo karaamo iyo sharaf noo hartay ma jirto in aanu noqonno dadkii la sheegi jiray ee magaca iyo karaamada iyo sharafta lahaa ee xorriyad iyo halgan kasta kow ka ahaa inaan noqonno dadkaasi dad qayirmay oo kuwii la dhihi jiray daanyeera loo rogay inaan nahay ayada labadaasaa mid soo baxaysa waa istaagnay waa kacaynaa mar dambe sidaan u imid wallaanan saacadan nasanin wallaan idinkugu dhaartay inaanan saacadan nasanin waxaan u taaganahayna waxa weeye inaad wax noqotaan waaye weliba dhallinyaradan lasii hadlayaa mustaqbalkooda lagu cayaarayo la duugaye la iibsaday haye aan iscadfinna marka maanta laga bilaabo oo wallaahi iga daacada ani cafiya masaabaxa iga tegin waxaan rabaa idinkana dhexdiina inaad iscafisaan waxa aad sheegaysaanna inaad ka dhabaysaan waxaan la yidhi madaxweyne hadduu duceeyana waa la khayraya hadduu habaarana waa la degay soo maahay haye waxaan ku ducaysanayaa tawfiiqda allaha na waafajiyo dulmidoogana ilaahay ha naga saaro ilaahay waxaan ka baryayaa magacii iyo karaamadii iyo sharaftii aan lahayn in ilaahay noo soo celiyo waxaan ilaahay ka baryayaa saacaddaas waxa aan ku hadleen aamiin u leenahay kuwa u dhaqaaqa in ilaahay naga dhigo oo aan iska qabanno dulmidowga dambiilaha ah ee gudaheena ku jira wallaahi baadan weligaa mushaar arkayn adeer cusmaan weligaa mushaar arki maysid haddaadan dariiqa mataqaanaa saxdaa aanaan maamul ku samaynin sow saas baa iskuga raacsanin aanu wada istaagno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aynu ku eegaynay khudbadu madaxweynaha galmudug maxamed axmed cali maanta ka jeediyey kolan uu la qaadanayay qeybaha kala duwan ee bulshada galmudug kaasi oo looga hadlayey sidii loo xoojin lahaa ammaanka deegaanada galmudug barnaamijkii oo aan la socodsiinaya anigoo roble maxamed dirir ah iyo weliba soo saaristii cabdulqaadir axmed jimcaale intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka laba intaanu kulmayno waxaan iskaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo